wasiirada kheyraadka biyaha ee jaamacadda carabta ayaa shir ugu soo gabagaboobay dalka Kuwait iyadoo uu shirkaasina ka qayb galay kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya. wariyaheena Aamina Xuseen Maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaysa. shirweynaha saddexaad ee arrimaha biyaha wadamada Carbeed ee heer wasiir ah ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Kuwait ayadoo go'aanada soo baxay ay yihiin kuwa waxtar u leh Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qodobada isku raaceen wasiirada biyaha wadamada Carbeed ayaa waxaa ka mid ah in dawladaha Carbeed ay iska gaashtaan horumarinta kheyraadka biyaha iyo habsami maamulka ilaha biyaha. wasiirada ayaa intii shirka uu socday waxay isla korfeeyeen in dawladaha Carbeed ee qaalahooda hooseeya laga saacido mashaariicda horumarineed biyaha iyadoo hay'adda Carabta ee horumarinta biyaha laga codsaday in daraasad ay ku sameyso baahida dalalka u baahan in laga gacansiiyo horumarinta biyaha. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cismaan Libaax oo khudbad muhiim ah ka jeediyay shirweynaha ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda biyaha dalka iyo dhinacyada u baahan in Soomaaliya laga gacansiiyo taasi oo madaxda shirka ka qayb galay si weyn u muujiyeen in ahmiyad gaar ah la siiyo Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shirka kadib waxa uu kulamo gaar ah la qaatay wufuudda kala duwan ee ka soo qayb galay shirka iyadoo shirkaasina uu ku soo dhamaaday is-afgarad iyo ballanqaadyo la xiriira mashaariicda lagu horumarinayo kheyraadka biyaha in laga hirgeliyo Soomaaliya. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.